qofku hadduu taaka qadarkee dhulka xaqdarro ku qaato maalinta qiyaamaha waxa loo surayaa qoorta iyadoo 7 dhul laga soo jaray qadarkuu qaatay ayaa 7 dhul laga soo goynaya qoorta loo gelinaya sidoo kale xabsi aanu qofku mutaysanin in la geliyo iyadana waa laga digo waa dulmiga qaybihiisu ka mid yahay qofkii oo mas'uula haddii uu hantidii ummadda ku boobo xilkii uu lahaa ama qori ama qalin iyaduna waa noqonaysa dulmigii waxa ka mid ah in sharci lagu qaato oo qofku uu iska og yahay waxaan in cid kale leedahay ama danguud ha ahaado ama dangaar ha ahaadee laakiin wuxuu leeyahay maxkamad baa ay xukuntay sidaa daraadeed sharcigii baa ay siiyey ama dawladdii hoose ay siisay waanu og yahay in qofku naftiisa been uma sheegeen dadka jirkooda oo la garaaco ama xabsi la geliyo si gardarro ah dadka garaacaya qowmun macahum siyaadun kaadnaabil baqar waxay sitaan ula dhaadheer oo sida looda dabadeeda kala ah dadkay garaacayaan yadribuuna abshaar annaas dadka jirkooda ayay garaacayaan kuwaasi jannada ma galaan udgoonkeedana ma helaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka qofkii ama qof xoog sheeganaya ahaada ama mas-uul ha ahaadee dadka jirkooda in ciqaab lagu soo gaadhsiiyo gardarro iyadana waa ka digay sharcigeennu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dulmiga noocaasa uu ka digay xadiidkii saxiixa ahaa muslim ku sugnaa min xadiidi abi hurayrata waxa uu yihi 2 qolo oo ka mida dadka